right maanta halkan waxa isugu yimi Fadxiya Cabsiye iyo Now waxay is sheegde waa warsame oo xaraweelo waxaan ku diidayaa raweelada inaan xaraweelada diidayso waxaan islahaa iyadu ha isku tidhaahdo waa baliir waxay baa xaraweelada reeb marka saar xaraweelada macna weyn buu taagan tahay hadii aan aqoon soo akhriyo Soomaaliga Exactly I know marka haddaan laakiin magac waxa jira oo badan la igu yeero oo la yiraahdo dadka aad iyo aqoonin ma yaqaanaan laakiin dadkii hore haldaan oh that's beautiful marka waxa yiraahdaa uba haldaan laakiin markii la dhaho it's so nice and innocent and sweet I don't want to portray that because dagaal baa ku jirnaa 24 saac ma naga sweet noqon karna hadda ma sha Allah marka waxa dhahay haldaada iga daayo bal arweelo horta haldaadu it's all about mood xiran yes laakiin arweelo waa hay tartiib let's talk business way exactly let's be serious that place we high on amazing bakery stuff yeah they are so cool all the while we're professional they know what they're doing feel free in a quraaci la xumayno cunina maya quraac sax waxaan ka dhiganay inaan imaano meel aad maqlayo qurux badan oo hawo fiican iyo cimilada maanta ma sha Allah weather tuu yahay hawada sida ugu badan tahay cadceed alxamdulillah nimcooyinka kamid tahay nimcooyinka ilaahay alxamdulillah caalamiin ilaahay nasiiyay ilaahay waa noo roonaaday iyo nabad inaan labada joogo iska fariisan halka inta maanta in eegeen baa waxaan sameeynaa sababtaada meeqa waay baan u dhahay maana wax xijaabkayga xidhan wallahi wax noo daadsan yihiin waxaan doona dhiganayno dhibaato jirto waxay ka mid tahay nimcooyinka ilaahay This is like Washington. Mar walba waad aragtaan inoo meelaha marmaraya. This is part of like Washington. And marka maanta aniga ubax halkan waxaanu isugu nimi inaanu ka hadalno wax badan oo laga hadlaa waa buuxan laakiin waxaanu isugu nimi inaanu ka hadalno maanta focuska iyo diiradda saarno arrintan Somali Me Too. oo ubaxna ayaamahan ka hadlaysay aniguna aan ka hadlay and sidaad la socotaanba weerarku waa badan yahay xalayto waxaan u sheegay ubax xataa video la soo dirayo inaan live intuu soo galay lehnagahan oo dhan waan ku xidhaynaa Facebookyada been bay sheegayaan waa been waasiin inkastoo ku bilaabay markii hore maama Malyuun iyo gabadh khatar la yiraahdo inan France joogto oo maxay soo qaawisay anagtana ceebaysay waxay tiraahdaa reebay fuulay waxa soo noobaxay waxa ka daran nimanka waxa ka daran naagaha telefoonka soo diraya ee soo caayaya gabadhii caayaya wayn ceebayaan wayn shaqo laga qabtaa marka we really want labadeenaba waynu ka hadalnay individually laakiin waxaan doonayay in conversation inaynu arrintan falanqayno anaga sideen la tahay horta saa u sheegtay waa fiican oo aniga waxa la yiri ubaxay Me Too-gan movement-gan adiga hor socod ku tahay waxa la rabaa in aniga la iga reebo oo la yiraahdo jooji wallahi alcadi maalinta video aan sameeyay waxa la ii soo galay luqayga wuxuu ahaa booming oo shidna waayo maninba ma gabdha wal ii soo wada galay dad aan xushmaynayo wallahi oo aan respect u hayay ayaa lumiyay hadda xushmadooda sababtoo ah waxay leeyihiin maada ogaa dadkan oranaya waana la sameeyay waxaana lagu sameeyay ubax maada ogaa inay runtahay ma og tahay inta soo excuse ah waxaan adigu inaan lagu sameeyn adigu sadiq weydiinaysa daan ku weydiiyo maada og tahay mid kale qof intuu meel soo istaago hadda anigu ma ku erin waxba lagu sameeyay ma dhihi karana waxba lagu sameeyay dadkii oranaya marka waxbaana lagu sameeyay haddaad adigu tiraahdo cadee proof show me proof ama 15 sano ka hor hadii lagu sameeyay sabay uga hadli karaan baa lagu leeyahay oo 15 sano hadii lagu sameeyay adigu waxaan weliga ma lagu sameeyay wax ma marka may ka hadasho that's precisely waa sababta exactly aanay uga hadlaynin waa haddeer actions kanaad sameeynaysaan exactly waxay uga hadlaynin hadda 15 sano ka bacdi ilaahay uu siiyay awoodii iyo quwadii ay ku tiraahdo bal isa soo bandhigo bal qof inaad caawisnaad laga yaabaa maanta markay hesheen waxa leeyahay waxa laga yaabaa marka inay caruur baahayd ba hablahani caruur bay badnaayeen
15 sano ka hor waxaan asagoo dhalinyaro sameeyay bay maanta reerkiisa kala burburinaysaa markay soo baxdo waka ayada maxaa waay responsibility-geed inay ka fikirto reerkiisa mise responsibility-geed inay ayada dhaawac gaaro sidii ku daweyn lahayd ay bugsato case close asagoo hadduu sameeyay 15 sano ka hor caqli soo muu lahayn maanta hadday timid in consequence-gu face gareeyo waxba igama gelin consequence-ga face gareeyo meeshaan iga ma midda kale qof waxa soo sameeyay oo consequences baan waxba bal lagu sameyn waxba dhibaato ba ka soo gaarin warisi qofkaasi muxuu sameeynaya wax dhibaato gacantaba lagama dhirbaaxin dhibaato kama soo gaarin dadka saasi ma joojiyaan inta badan marka it's never too late inaad waxan ka hadashid it's never too late inaad ka hadashid healing process kana waqti ku qaataa healing process qofku markuu galayana wayno kala duwanta kulligan dhaawac markuu qofku gaaro qofba sibuu uga jawaabaa qofba sibuu ula macaamilaa gabdhuhu waxaan idhi maybe now waa timekii waxaan ku faraxsanahay horta aad baa uga xumahay in oo maanta me too ee annaga dadkeena intaas oo qof waan ogeynay waan ognahayba haddana waxaan laakiin ku faraxsanahay sida kale in maanta ay istaagi karaan dumar Soomaaliyeed ay dhihi karaan waxaan anigu sameeyay ay ogaadaan maahan iyaga footooda ay ogaadaan inay ka hadlaan cid ay ceebeynayaan male no shaming waan ceebeynayaan qabiilka way ceebeynayaan waxaan idhi kalaanka dhan maahe magac Soomaaliyeed ceebay hadartay haday ceebtu sidaa tahay laakiin wada ceeb horta wada ceeb waxaan idhahdaa shame what is ceeb horta definition of ceeb baa naga maqan aadiya definition of ceeb baa naga maqan dumarkan wallahi mid yar iyo mid weyn ba tii soo baxda aniga kulay waxay tiladeedu arkay waxa dheer uga wada I made a promise inaan caawiyo oo midii iga baahan maanta aniga inaan garab istaag whether ay noqoto garab istaag qofkii ay leedahay waan aqaanaay hal ila raadi sharciga noocay noqotaba waa la tiigsanaya macnaha ma aha waxa lagu yiri ubaxay qof oo ana waxba lagu sameeyo haduu soo istaago oo qof uu ka waran victim ka dhigo sidii dhalinyarada sportiga oo African American ka sidii xadaanka ay ku sameyn jireen meesha la soo tiigsanay waxaan ku yiri taa haday dhacdo qofkii qof aan waxba ku sameynin dhibaato u geysta ee kulligeen baa gees uga soo jeesanayeen sabab here's the thing way jiraan the term later belief woman I've always said we don't have to say belief woman it's kind of like it's almost a hindrance sida Black Lives Matter oo kale ay dad badan ugu horreeyay hadii la oran lahaa Black Lives Matter too way ka sii hawl yaraan lahayd inagu we already know what that means everyone reasonable hina wuu garanaya macnaheeda waxa weeyaan that's exactly what it means Black Lives too way iyadu ma garata iyagaba naftoodu waa matters woman malaa'ig ma hayaba ma garata bina waynu aragnay many times way dhacday dumar been ka sheegayna ama iyagu waxooda isku waafaqsan waxooda samaystay oo markii dambe markay ogaatay wax say doonaysay inay ka weeday ay isbedeshay waa human being of course laakiin even wadamadan aynu joogno ee dadku inay isla seexdaan iyo waxay doonaan sameeyaan ay normal ka tahay it's very very rare very rare ma garatay and gabadh Soomaaliyeed oo lagu koriyay haddaad hadasho haddii lagu kufsado haddii lagu dilo haddii lagu maaragtay haysta laga dhigto wax walba oo lagu sameeyo it's your fault waxaan oran karaa boqolkiiba maybe 99.9% gabadh Soomaaliyeed oo tiraahdo waa la farxumeeyay run bay sheegaysaa there's no way ay banaanka isu soo saarayso oo waxa soo masiibo ah isku soo jeedinayso because the weight of the world ay isugu jeedinayso familkeeda to qabiilkii to kii kabsab kalaankii kuwi kale ilaa iyo ay ku mustaqbal beelayso ay ku guur beelayso ay ku gacal beelayso ay ku maaragtay ehel beelayso marka give me a break let's be realistic people runtaas ku sheeg gabdhahan la leeyahay waatan nimankii soo wada burqadeen horta ay leeyihiin ninba xalay wuxuu soo qoray fariin uu leeyahay aabaha ma necab tahay ma aabaha baad necab tahay waadiga ragga saa meesha laga bilaabo weeyaan waxaan ku yiri no aabahay waan jeclahay because you know what aabahay kufsade ma ahayn dilaa ma ahayn boobe ma ahayn dhaca ma ahayn mas'uuliyadiisii kama carin he was a good man just like there are plenty of good men oo walaalahaya ma garatay laakiin the bottom line is gabadhi ma xumaato haddaanan xumayn mayada isfuusha mayada uur su yeesha what are we talking about the reality lagama hadli karo iyo adeer baa xumeeya abti baa xumeeya
my own family gabadh yaroo 8 bilood jirta 8 bilood ayaa hooyadeed qol jiifisay iyadna daaradday u soo baxday inay ku tukato abtigeed rumaa intuu soo daba mara kala dilaaciyay gabadh yar beenta inta abtigeed rumaa hooyadeed la dhashay but you know waxa lagu sameeyay one of the proudest moments of my life awowgay ilaa ku naxariiso aabahay abtigii rumaa oo isagana adeerkii ahaa ayaa nasiib wanaag magaaladu joogay marka waa tuulo reer abtigii dego magaaladu joogay marka nasiib wanaag arrintii baa loo sheegay ninka naqaati baa laga joogay hablo badan buu kufsaday oo wuxuu ahaa he was so waa la ogaa caadi baa laga dhigtay sidii loo lahaa maalinba mag looga bixinayo wax looga bixinayo la inaga daaya weynankeenni wuu ka weynaan wuu ka kori ayuu isagoo 30 jira weli sheekadii halkii ka wada ma joojinayaan because dadku waxaan fahamsanay qofkani wuu bukaa wuu xanuunsanayaa in la daweeyo u baahan yahay in meel lagu xidho u baahan yahay society-ga jaaliyadoo dhan intaydaan wasaqayn ee gabdhaha aan la wada fuulin iska qabta ma xanuunsiya daweeya bukaa ee daweeya marka awowgay baa joogay nasiib wanaag marka awowgay ilaa ku naxariiso xaqiiqaan sheekadii baa loo sheegay inantii yareed u kala dilaaciyay bal imagine 8 months old agabrionaysa 8 months old iyadoo agabrionaysa intuu yimid kii soo qabtuu yidhi awowgay dooxada ha lay geeyo yidhi dooxada loo geeyey group ragoo ilmaadeeradiisu soo kaxay wuxuu yidhi baas ku fura haba naga haba isn't that waxa quraanku talks about quraanku miyaan odhan dadka people who are corrupting the land dadka fidnaynaya ummadda ka qabta ka qabta laakiin wadan diinteen raacay dilku marmarka qaarkood ma aha the worst thing that can happen no waxa kale intuu sameeyay oo hore u soo sameeyay ku baxsaday ma aha inta kale soo socota laga badbaadiyo exactly Soomaalian xadiis oo nin inta soo maray reer wiilkii yaraa dilay ka dilay sababta u dilay maxay ahayd wuxuu markii la weydiiyay fidnadu reerkaas wanaagsan oo aabahay hooyada iimaanka aabahay hooyada leh saalaxa wiilkan fidnadu ku keeni doono darteed baan uga dilay diinteena macaankeeda marka waa sidaas haddaan iska qaban lahayn qofkii dhibaato geysta dad badan baan badbaadin lahayn laakiin dhibaatadu waxay tahay isma qabanno waxaan isku taageernaa oo aan xabadka isugu daloolinaa saa isugu garaacayno inaan ina adeer taageerno hadduu qaldan yahay iyo haddii kalaba arrintaasna waxaa ugu weyn fadxiyo dumarkeena madaxaad kaga dhufan dumarkeena ugu weyn aniga waxaan dhahdaa war raggii aan iska celinne dumarkii maxaa ku sameynaa iyadii baaba laftigeedii iyadii la kufsanayey iyadii cunugeedii la kufsanayey ayadii aanan masruuf la siinayn iyadoo ilmihii loogaga tegay suuqii bacadka fadhido oo tabaadhada ku iibinaysa ayadii markaad tidhaahid naa xaquuqdaadii iyadaa waxay difaacaysaa kii intaa ku sameeyey inta feeraha u garaacda difaacaysa ayay gabdhihii laabta u soo tumanaysaa wanaaagtaa iyagaa dhilooyina iyagaa abbaayo adaa lagu hafurtay bay idinkaa lagu hafurtay waa nin raga waxaan ku yidhi gabadh yar baa xalay fariinii soo dirtay waxay igu tidhi this is very very important waxay tidhi well actually two stories oo identical laba sheeko oo exactly the same bay laba gabdhood kala sheegeen one story was sanadii barka hor meelahaas sheeko kala xalay timood moodayso inay isku qof ku dhaceen labadan gabdhood labaduba eedooyinkoodii la joogeen mid eedadeeda waxa loo keenay reerkoodu reer miyi waxa eedadeed baa loo keenay oo magaalo weyn deganayd si ay gabadhu iskuul uga aado halkaa inankeedii weynaabaa kufsaday gabadhii maalin walba meel la galo fuula inantii uur baa kusoo baxay inantii uur markuu kusoo baxay gabdhaha waxa lagu samayn jiray hadda jira waxa la odhan jiray si ay u wareeriso magacyadoo dhan u khalado niman badan baa la odhan jiray magacaw niman badan ma garatay kii waxaa lagu odhanayaa ha sheegin dafir waxaad tidhahdaa nin reer hebel igu sameeyey ninkan igu sameeyey hadhowta waxaa loodhanayaa markaa gabadhii eeg ulajeedada waxa weeye rag badan bay qabsatay baa la odhanayaa rag badan bay qabsatay si loo yiraahdo xaq looma soo raadinayo waayo maba oga ma ogo intaasay la wada seexatay ma garatay waa to corrupt gabadha sheekadeedii blaming the victim gabadhii saasaa lagu sameeyey eedadeed meel walba caybay wiilkayga qabsanaysa waa sharmuud waa la wada yaqaan intaasoo nin bay la seexatay eedana ma lihid lama lihid habar yartaa ruma cid kuuga xigta nobody iyaday kaa xigsanaysaa exactly taasaa u lahaa ballan baan ku qaaday haddii uu kan ila dhashay yahay inaan booliska ugu yeedho waayo aniga ehelkayga ma tiid markaad gabar ku samaysay who am I anigu yaan ahay dee masiibaad qarsanaysaa may anigu yaan ahay but here's the thing though masiibaday qarsanayeen baan kuu sheegaya labadaa dumaraba gabadhaas
finally ilmihii yaraa way iska dhashay iska noolaatay okay you know waxa ku dhacday eedadeed afar inan bay lahayd inankii ugu weynaayay adduunka ugu jeclay within months masiibada ay urursatay habeen intuu seexday muuga soo kiiba waa ninka reerka ugu jeclay kii kalena muxuu noqday kii gabadha sidaa ku sameeyey alkoolistu noqday kanada joogaan xabsiba ka bixin ma garatay waxaa sameysay waa ka dareemanayaan hablaheedii iyo reerka carruurteedii way wada fidmoomeen inanta yaree kale ii sheegaysay shalay fariin xalay ii soo dirtay waxay tiri habar yar hooyaday iyo aabahay way kala tageen eedaday ayay hooyaday nagaga yara tagtay si ay sanad noogu soo shaqayso anigii walaalkaya waxay tiri eedaday carruurteedu way iga wada waaweynaayeen inan baa jiray inanka ugu weynoo isaguna ilaa 11 baan haabay tiri inankuna ilaa 18 jir buu ahaa maalin barqaa iyadoo roob da'ay oo aan banaanka ku ciyaarayno baan soo wada cararnay oo qolalkii baa lagu kala cararay qolkii ugu sokeeyey baan anigu galay oo aan ku cararay kii oo banaanka isla soo qoyay baa soo cararay oo qolkii uu soo galay hareeraha markuu eegay buu waxaa arkay anigoo keligaya albaabkii intuu celiyey ayuu waxay tiri dabca inuu kufsado aniga isagii dagaal nasiib wanaag waxay tiri dee teenager buu ahaa isboo maaragtay ilaa 18 jir buu waxay tiri gudihii baan isku martay dagaal baan la galay feed buu igala daalay meel walba adigu final waxay tiri sanqadh buu maqlay ilaahay baa iga qabtay wuu cararay anigoo meel walba bararsan oo dhiigiga da'ayo markaan soo baxay eedaday way maqnayd corner baan iska fadhiistay waan iska ooyay waan iska baroortay eedaday markay timi ayay igu tiri maxaa ku helay waan u sheegay anaa eedo la hadlay raalli ahoo bay tiri iska aamu eedo walaa way la hadashay walaa nothing ila waa nin loo seeta dheereeyey waxaan bartay maalin walba waxay tiri naaska igu dhig xagga dambe igaga tiir maalin walba dabada maalin walba waxay tiri sanad baa nolosha ku nool waxay ii soo dirtay mar waxay tiri waxay lugteeda soo sartay waxay tiri nabarka halka iga yaala habar maalin anoo ka cararaya ayaan intaan kufay baan dhalo i gashay waan eedadii inay protect garayso iyada waxay tiri this is what happened waxa ku dhacday gabadhii kii waxaa ku sameeyey may waxay tiri hooyaday baa soo hadasho waxay tiri waa nimanaya waan soo socdaa markay maqasheen hooyaday soo socotay eedada ii timid tiro waxay igu tiri eedo hooyaha u sheegay waa ku baryaaya waxaana guri kasta way ka dhacaan waa wax iska caadiye waa nin raga eedo raganimaa gubaysa raganimo ayaa gubaysa eedo waa ku baryaaya iska aamo in ilaahay ku asturo hooyaha ii sheegin waxaan arkay bay tiri eedaday cuqubadeeda maalintaasaan uga sii calool go'ay maxaa dhacay kii waa la dilay nin bay murmeen askarta somewhere askar buu noqday laba nin kale isagaa murmay xabad baa lagu tiriyay waa la dilay laba wiil bay lahayd kii kalena Sweden buu soo galay gabadh buu kufsaday dhowr iyo 20 sano lagu good for him marka wax ala kulli xaal waxaan uga jeednaa fidnadan aad uruursanaysaan fidnadan way ka dabayman ya inamadiinuna hagaagi maayaan oo iyagii baad nafsi iyo naqsi u dhigaysaan aad ka gelaysaan waa double jeopardy not only inaad inamadaadii baabiisay oo aad mustaqbalkoodii kaga ciyaarto ku xumaysay nafsina waad ku buuxisay ilaahayna tiisi waa ku tahay ilaahay tiisina waa ku tahay do you think you can get away with this naga Soomaaliyada oo idinka laabta soo tamaraya ma ku baxsanaysiin may what do you think maxad korin wiilal baad korin gabdhaad korin wiilkaaga qalad ku galo gabadhaad korinaysid mid ah oo hooyo adoo kala dhashay baa dhashay xagee soo dhacday horta gabdhahan baas waxaan la yaabay dumarkanooda gabdhaha dagaalka ragga ula safanaya na ayagu gabdho walaal may dhalin maxay u dhali waayeen gabdhahooda gabdhay dhaleen oo iyadii baa gabadha iyadii nafteedii waa hore gabtay iyadoo lismaba weydiinayo waxaan leeyahay naxariis yar oo gabadha dhashay meel ku jirta kuma jirto because gabadh hore anu waxaan idhi gabdhihii ragguna raggay u hiiliyaan gabdhuhuna raggay u hiiliyaan marka yaa meesha ku dooda yaa xaday marka gabadhii yaa u xaday gabadhii waxa way kaligeeda dhinacyada looga yimid waa la isugu tagay dumarka isugu tagay iyo raggii labadaba sharcigii bay isugu tagay wax walba meel walba ka joogaan haddadan waxaa la sheegay gabar ka tagtay Mareykanka afkeeda ayada ii sheegay ma aha gabardeen waa annagana lagama naga weynba oo hooya Muqdisho tagtay hadday joogtaa caruur yar waxay u geysatay inay xogaa dhaqanka ku soo bartaan waxay tiri ubaxay xafiis baa tagay shaqa ka doonta nin weyn oo xushmaynayo meeshii markaan tagay oo uu yiri shaqadii wallahi dee qof adiga xataa Mareykanka timid oo shahaadooyin haysato dee shaqadii waa ku siinaynaa haye laakiin guriga igu imo wallahi waa ku dhamaynayaa guriga igu imo haye oo maxaan guriga ka soo doonaa dee adigu afgarano wallahi alcadiim afgaro waa gabar aan garanayo oo anagoo kala ama naga weynba markaas waxa kula ubaxay marka inta igu yiri waxaan iri gabdhihii yar yaraaya 20 iyo 18 Allah u naxariisto aniga cimrigaan ku jira buu ilaahay afgaro haddii ninkii xafiis joogana sida uu sameeynayo maalintii ka sii horeysana waad xasuusataa gabar
application ki shaqada habqad miyuha ishan gabar habqad ah oo 25 jir ah oo sidaa u eg oo dhexdu inta leeg tahay oo dhexdu taa ka tahay hadii halka inta la soo dhigo application ki uu qayb ka yahay reason ka mataqaana gabadhan oo qualification ka sida u eg tahay iyo gabar 25 jirta oo gabar habqad ah iyo loo leeyahay waa in nin kasto xafiiska soo galay gabadhaas ee tuwado ma exactly kan uu ah manager ka ilaa ay kan meesha ka shaqeeyay xaqay kulli waxay u yihiin gabadhaas dulmar ma la daawanaya ma film ba mid ka celinaya mid kalena male mid walbana wuxuu isku siiyay asaga okay iyo ogolaansho asaga isku siiyay oo nin cidna ka qabanay gabadhaas markay ag maraysan inuu wadada ka dharbaa waka markay dhinac u jeestana naaskiina ku dhigi karo ciiday uga dacwoonaysana male eray waxa jiray dulmare u dacwoonaya kii dulmay waka waa dulmiga kii ugu sameeyay laftigiisa baan dacwoonaa la kale iga cili ku kala adoo kala wiiga cilina isagii baa wuxuu waayay oo ii qoslayay waa kii kulaha guriga igu afdaro taale marka ilaa ay hadda waa fahmi la ahay sababta banaankiina aan looga fakanaynin oo ay gabdhii uga fakan la yihiin gabdhaha xaasaska ah oo badan anigu oo aan arkayna waxay ku leeyihiin dibaan ugu haysta hadaan xabto gurihi ee dib ku haysta war haddii guriga tii ku joogto dib kugu haysto tii banaankana ka baxsaneen xageen aadna marka waa yaab wallahi alcadiim marka waxa weeye haddana waxaan rabaa inaan ku daba daro anagu rag oo dhan ma haysano 6 nin baan la dhashay 2 wiil baan dhalay oo mid hadda goordoon yahay aabahay waa nool yahay maanta waa taagan yahay rag ma nabciye rag oo dhan ma qabaan dhibkane inta dhibka wadan ka hadlayna soo I don't want in la soo ataagarayo oo rag bay maanta soo akhristaan no waxa way ogyihiin ogaan bay waxa u sameeyeen waxa weeyaan waa hasha geel cuntay cabaad waxa weeyaan geel halaha waxa jira intay awrta iyo geel kale cunto burqata hadana ma garataa waxay ku oranayaan raggu ma wada xumo laakiin hadii inta wanaagsan badan tahay de dhibaatada ina haysataa dadahaan u madahaan ina ma bahaysataa mid kale waxaan ka yaabay anigu hadda xalayto video aan shalay sameeyay ma yahay ka hadlayay dumaridii gabdhuhu iyaga lagu haftay iyo niman kale iyo nimankan leh been bay sheegayaano adeerka kuma bahawoon karo waxa la hayaa adeero gabdhahay adeerka ruma waxaan hadda daasan haya 11 years old ayaan way ka hadlayeen koob iyo 10 jir adeerkeed rumahi intuu fuulay ilma ka dhalay baa la hayaa sheekadan ragga iska hiilinaya ee iska qaylinaya halkii aynu dunuubta iyo dhibaatada iska qaban lahayn marka tiraad inaan baxalti wuxuu ii soo qoray wuxuu yiri intaad naga dayso nacnacdan iyo qayladan farxiyay wax wanaagsan baad soo gudbin jirto lagu yaqaanay kaftan iyo sheeko iyo heese inoo heeso inaga daa waxaan dhamaanayn this xalay waan ooyay this was very painful waxaan dhamaanayn buu yiri oo wax ka qabad lahayn waliba wax ka qabad lahayn inta ka hadlay sida ku mashquulaysan inaga daayo fankeeni inoo wada waxaan idhi waa tahay kuwii horena ee yiri iyaguna gabdhuhu iyaga lagu heerfay macaasho yar baa lagu hafuratay gaalkacayo oo nimankii cid ugu xigay ehelkeeda ahaa ee ay raashinka u geenaysay u soo karinaysay guriga u soo hagaajinaysay ay intay kufsadeen ay isugu yeedheen ay xidhxidheen ay qurubka u gooyeen macaasho dhuxlow oo kismaayo ina yaroo 14 jira oo reerkoodii ka timi Kenya ayadeed ku socotay kii markay maraysay kismaayo ayay waa 2008 ayay niman iyadoo meel lugeynaysa ka afduubteen way isugu tageen fayl bay ka galeen al-shabaab baa markaa kismaayo haystay uu soo dacwatay caasho dhuxlow sheekadeedu waa very famous watii dhagax lagu dilay I broke that story markaan voice America u shaqayn jiray you know caasho dhuxlow waxa lagu yiri annaga naga warsug baa lagu yiri meel baa lagu sii xidhay magaaladii baa loo baxay microphone baa la qaatay waxa la yiri garoonka isugu kaalaya maanta garoonka markay isugu yimaadeen godkii dheeraa baa la sii qoday iyadoo justice bay suubinayaana justice aan suubinayna kaalay madaxa maro loo galiyay markii meeshii timee godkii lagu riday baa laga furay madaxii dhagxanta iska rogaa la keenay dhagxana ma garatay you know how long it took her to die 2 hours bay ku qaadatay caasho dhuxulo 2 saacadood baa sidii dhagax loogu dilay ay ku qaadatay 2 hours imagine that nimanka Soomaaliyeed ee leh wax ma kufsi ma jiro dhibaato ma jirto idinkoo sheeko kaleba aanan gelin caasho laba caasha let's talk about laba caasha ka fakari George Floyd 8.5 minutes 8 minutes and 46 seconds ayaa qoorta laga taagnaa oo cabaadkiisii la maqlayay uu neefsan waayay
you see adduunka siduu u gariiray adduunka siduu u gariiray meel walba waxa cadaankii oran jiray all lives matter ee dafiri jiray dhibaatada madowga haysata ay yiraahdeen enough is enough inagana caasho 2 hours imagine that marka anu waxaan isweydiiyaa waxay isweydiiyaa abayo waxaan idhaahdaa annaga who's gonna die for us hablaha Soomaaliyeed yaa u maqan who's gonna die for gabdhaha Soomaaliyeed yaa nimankii noo dhiman lahaa inaan ka xaliisan u waxani adiga ay ahayd inaad sharafta iyo xaqas gabdhaha Soomaaliyeed aad u dagaalanto aad u dhimato adiga noo dhiman lahaa hadaa tiraado wax ka qabad male oo aad tiraado hal la daayo rag waxa iska fulfulana illa way u baahan yihiin way u baahan yihiin who's gonna die for us nimanku waxa u walaalahood way u dhintaan in adeerkood hadii la dilo way u dhintaan in maaragtay ehelkooda way u dhintaan ragga kale way heleen who is gonna die for us raggii hore gabar garaarkeeda ninkii taabtay maxaa dhici jiray dadkii la yaqaanay awoowayaal ka sii horreeyay nacam weligood dumarku hadda u badaanaan ilaa xeer laakiin the level hadda waxa jira rag baa isku layn lahaa gabar saan ninkii taabtay nin garaarka gabadhii ku shubanaysa baan xasuustaa ayadii oo shaqaysa garaarkeeda furay saantay walaalkeeda tagtay oo dhacday hebel baa maanta garaarka meesha biyaha laga shubay garaarkeeda furay xabad buu inta qaato ku soo dhijiyay sida gabadha walaashay sheeba garaarkeeda u taabatay nacam yaa ku banay marka rag aan awoowayaasha nooga shaqeeyeen iyo ayayaasha saas oo ah maanta waxa yimid asagoo halka taagan oo gabadhii ku sameynay wax walba inuu kii kale tan u yiraahdo waskan hal daay let boys be boys iyo waa muxuu ahaa isha locker room talk iyo America ku arki jirnay oo kale way waskan rag weeye waa ka xajooneena ama aan ka xajoonay marka laga xajoodana kuwii dulmanaayo dhulkii joogay dhulkii anu waxaan u bixiyay dulmilaan baan u bixiyay dulmilaan dadkii dulmilaan joogayna gabadhii marka laga xajoodo xogaa lacaga inta odayada nahaabiinta ay la siiyo oo gabadhii inaan wuxuu iiga sheekeynay maalin dhaweyd qurxo gabadh inta la kufsaday wallahi iyadoo dhakhtarkii taala oo la kala dilaaciyo fay laga galay xogaagii looga soo qaaday nimankii sidaa ku sameeyay hal barti baa lagu kala qaybsaday barti baa lagu kala qaybsaday inaan iyada shafshafo ma gaaraysin hatta hooyada iyo reerka ma gaaraysin ayaga u taala you know what else horena waan uga hadlaya marka la soo wada xaajoodo la yiraahdo aan soo wada xaajoodo waxa la sameeyay inta la soo wada xaajoodo gabadhii many times marar badan waxa dhacday in kii kufsaday dib loogu celiyo yaa oo loo guuriyo la yiraahdo uurka ku qaad waad qurunsatay wuu baacsaday qof kale raba ma jirto taas waa history noo tahay in gabadha ninka kufsaday loo dhiibay psychologically marka maskaxiyan gabadhaas traumatized lagu soo binay again and again every time he's going to be raping her forever every day why because this man is sick ma qabo xaraan buu ku haystaa ayadina wuxuu ku hayaa xaraan oo jirkeedii kaliya ma ahan maskaxiyan uu ku hayaa dadnimadeedii qofkeedii gabadhaas aas waa la soo aasay gabadha lagu daray ninka kufsaday god inta loo qaday iyadoo nool in la soo aasay baa loo qaatay maxay hadda ka nooshahay taas waxa lagu leeyahay history oo waxa la dhihi jiray dee wuu kufsaday oo hadduu kufsaday asagii ku dara way uu baabacsaday dee leenahay marka dad oo taariikh saas ah leh horta taariikh ka xun male horta Soomaalidu dhaqan wanaagsan waa lahayn jiray meelo badan aanu ka wanaagsan waxyaabo badan aanu ku fiicannahay laakiin arrintan ah me too wallahi arrintan gabdhaha in oo ay ka hadlaan waxa ku dhacay waa arrin u baahan George Floyd sidiisoo kale in loogu istaago ma aha mid inay hakata ay tahay maanta sida u socoto waa inay u socoto excuse ma jiro oo mid dambe dhuumanaya ma jiro oo mid dambe oo gabar maaragtay intuu soo kufsado oranaya ma yeelin oo la soo banaan dhigeen ma jiro 20 sano haday ahayd waa la banaan dhigaya 5 sano haday ahayd waa la banaan dhigaya shalay haday ahayd waa la banaan dhigaya anigu waa ku encourage gareynaya free counseling baa siinaya gabdhaha kuwa magaalada ila jooga oo aan leeyahay you are worth it abayo wixii kugu dhacayna ma aha faultigaaga horta inaan ka dhaadhicin marnaba adigu ma aadan kasban ma aadan keensan ayada maxay samaysay maxay xirnay maxay tiri sidee bay ula hadashay maxay u samaysay maxaa asaga ku keenay may waxaas ma jira making excuse for his isaga khaladaadkiisii iyo waa waxyaabaha loo yiraahdo de naanaga qarjidkaaga naanaga waxay kankaaga cadaysta oo ilaahay wuxuu yidhi lower your gaze diina hoos u dhigay or sooma jihadka mar walba soo ila u furay waa inuu soomo haddaadan iscelin karin soon haddii aad tahay nin oo uu joogo xilli uu guursan karo dee guurso kullaba hadda idinka waxaysan ma annaga yaadan gadano iyo suuqa fadhina idinku masruufnaa waa iska ka masruufaysa hadda yaa masruufa yaa Soomaaliya dhan haya of course dumar marka dumarkana